waddan kasta dadka ilaashada ee dhista waa dhallinyarada iyo xoogga bulshada markaa joogta si ay dhaxal wanaagsan ugu reebaan jiilasha dambe. haddaba dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xoogga saartay awoodsiinta dhallinyarada ee dhinaca siyaasadda, arrimaha bulshada, difaaca dalka iyo dhaqaalaha. dhallinyaradu waa cududda dalkeenna, haddii la jiheeyana waxay keeni karaan isbeddel dhab ah oo dhinaca dibudhiska iyo taabagelinta dawladnimadeenna. qorshayaasha hirgalay ee horumarinta dhallinyarada ee la fuliyey sannadihii la soo dhaafay waxaa safka hore kaga jira dadaalkii dawladdu ay ku bixisay in ku dhowaad 2,000 oo dhallinyaro ah oo ku xidhnaa xabsiyada shisheeye dib ay ugu soo noqdaan dalka, kuwaasoo haatan sharaf iyo karaamo ugu nool dalkooda, qaybna ka ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee u taagan inay mustaqbal wanaagsan u horseedaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. ciidamada qalabka sida ee waddankeennu waa meelaha sida weyn ay dhallinyaradu uga dhex muuqato, waxaana arrintaa loo sameeyey in dhallinyaradu ay yihiin awoodda muuqata ee ciidamada dalkooda iyo ilaalinta xuduudahooda wax weyn ka qaban kartaa. waxay dhallinyaradu qayb muhiim ah ka yihiin hadda hoggaaminta ciidamada dalka Soomaaliya. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka duulaya in dhallinyarada Soomaaliyeed ee hormuud u noqoto hoggaaminta iyo dawladdiska dalka ah ayaa u magacaabay talisyada ciidamada qalabka sida dhallinyaro saraakiil ah oo wax weyn ka beddelay shaqada iyo muuqaalka ciidamada. 2018kii dawladdu waxay fulisay mashaariic shaqa abuur ah oo ku kacay $1.6 milyan kaasoo ay ka faa'iidaysteen 1,000 dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku nool magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Boosaaso, Beledweyne, Baydhabo iyo meelo kale. 2019kiina waxay dawladdu fulisay mashruuc kor loogu qaadayo tayada iyo xirfadda dhallinyarada, sidoo kalena ganacsiyo yaryar loogu samaynayo kaasoo ku kacay $31 milyan. 2021kii waxaa la bilaabay mashruuc wax looga qabanayo xaaladda dhaqandhaqaale ee dhallinyarada kaasoo ay ka faa'iidaysteen in ka badan 8,000 oo dhallinyaro ah. 2019kii waxaa la bilaabay mashruuc la dhaho bar ama baro oo ku kacay $49 milyan, kaasoo laga fuliyey guud ahaanba Soomaaliya, waxaana wax looga qabanayay xaaladda waxbarasho la'aaneed haysata ubadka Soomaaliyeed. 2020kiina waxaa la fuliyey mashruuc ku kacay $1.6 milyan, kaasoo lagu taageerayo dhallinyaro ganacsata. xarumaha muhiimadda weyn u leh horumarinta dhallinyarada waxaa ugu horraysa goobaha ciyaaraha, jimicsiga iyo goobaha kale lagu kulmo, si ay dhallinyaradu u helaan fursad ay ku muujin karaan kartidooda kuna horumarin karaan xirfaddooda cayaaraha. waxay dawladdu samaysay dibudhiska garoonka caalamiga ah ee Muqdisho Stadium. waxay kaloo dhaqaale kaga qayb qaadatay dhismaha garoommada ciyaaraha ee Gaalkacyo iyo Garoowe iyo Dhuusamareeb. waxay kaloo dawladdu meel marisay xeerar iyo sharciyo ku saabsan horumarinta dhallinyarada. qaran magacle iyo maamul dawladeed noo muujiyo waan mahadine ugu daraa mar kale. muuqatee madaxweyne rabaa